Videogan waxaan kugu tusi doonaa sida privacy policy page loo abuuro step by step. Haddaba su-aashu waxay tahay maxaad privacy policy u doonaysaa? Privacy policy waxay ka mid tahay dukumentiyada ugu muhiimsan website-kaada. Waxay qeexaysaa sida macluumaadka dadka soo booqanaya website-kaada loo isticmaali doono, oo waxay caddeyn doontaa in markaas aad macluumaadkan u isticmaali doonin qofka si xatooyo ah ama siyaabo kale. Faa'iidada kale ee leedahay haddii aad rabto in website-kaada lacag aad ka samayso oo aad Google AdSense ku xirto, waxaa laga maarmaan ah in website-kaada laga dhex helo privacy policy page. Faa'iidada kale ee leedahay mar walba website-kaada waxay ka dhigaysaa mid professional ah oo dadka soo booqda ay ku kalsoonaadaan oo ay ka helaan. Haddaba si aan privacy policy page u abuurno, waxaan qaadi doonaa kaliya laba step. Step koowaad ayaa ah inaan abuurno privacy policy. Haddaba si aan privacy policy u abuurno, waxaad furtaa tab cusub, kadibna waxa aad tagtaa markaasi termsfeed.com ama haddii kale ku dhufo link description-ka videogan kugu soo horeeya. Inta ayuu ku keenayaa. Saa ujeeda meeshaan waxaan ku haysanaa markaasi dhowr waxyaabood. Waxaan ku haysanaa privacy policy and terms and conditions, sidoo kale waxaan ku haysanaa markaasi terms of use. kaliya markaasi midda aad rabto inta ayaad ka dooran kartaa. Anagu hadda waxaan rabnaa marka hore inaan abuurno privacy policy. Waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay generate privacy policy. Markaa ku dhufato inta ayuu ku keenayaa, waxaad sameysaa wax yar hoos soo deg, kadibna waxaad ku dhufataa generate privacy policy. kadibna waxa uu ku weydiinayaa su-aasha koowaad ayaa ah markaas privacy policy maxaad u isticmaali doontaa, ma website baad u isticmaali doontaa mase app. Anagu hadda maadaama aan rabno inaan website u isticmaalno, waxaan dooranaynaa website, kadibna waxaan leenahay markaasi next step. Su-aasha marka wuxuu kaa rabaa meeshaan inaad soo dhigto markaasi URL-ka website-kaada. kaliya waxaad soo qaadaa URL-ka ama linkiga markaasi website-kaada. kan waa website-kayga. waxaan sameynaa markaasi kaliya linkigan soo copy gareynaa, kadib inta ayaa imaanaa, waxaan leeyahay right click kadibna paste. Su-aasha kale oo ku weydiinaya ayaa markaasi magaca website-kaada. kaliya meeshaan waxaa ku qortaa magaca website-kaada, kadibna wuxuu ku weydiinaa markaas nooca uu yahay markaasi website-kaada, ma mid business ama mid individual. hadda waxaan leeyahay waa mid iska shakhsi ah oo individual. kadibna waxaa ku weydiinaa wadanka aad joogto markaasi dooro. meeshaan fur dalka aad joogto ka dooro. aniga hadda dalkan ayaan dooranayaa. kadib waxaa dhahdaa next step. su-aashan kale oo ku weydiinaya markaasi information noocee ayaad markaasi ka aruurinaysaa dadka website-kaada soo booqanaya. waxaan ka aruurinaynaa kaba soo qaad markay rabaan inay la soo xiriiraan email address-kooda iyo magacooda koowaad iyo phone number-kooda. intaasi ayaan hal mar tig saarayaa. kadibna waxaan leeyahay next step. marka xigta wuxuu ku dhahay sideeba marka dadka isticmaalayaasha website-kaada ay soo booqanaya markaas kula soo xiriirayaan. waxaan leeyahay waxay ila soo xiriiri karaan kooda hore by email ahaan, oo markaas emailkeeda ay markaas fariin igu soo diri karaan. marka kaliya waxaa sameysaa meeshaan emailkaada geli. marka xigtana meeshaan waxaad gelisaa markaasi phone number-kaada. markaa phone number-kaada gelis kaliya waxaa dhahdaa markaasi next step. wax yar hoos soo deg. kadib laba su'aal ayuu ku weydiinaya oo markaasi ama waxaa rabtaa privacy policy markaasi mid oo markaasi professional ahaan, oo marka midaan haddii hal mar aad yes dhahdo waxaa ujeedaa mar walba aad su-aalahani ka jawaabtiin oo markaasi lacag ku weydiinayo, oo marka midaani waa maxay lacag ayaa markaasi laga rabaa. marka anaga hadda waxaan leenahay no ayaan leenahay oo marka uma baahnin. kadib waxaa dhahdaa markaasi next step. marka wuxuu ku leeyahay meeshaan email address-kaada geli. kaliya waxaa sameysaa email address-kaada geli, kadibna waxaa dhahdaa markaasi generate. haddaba halkaasi marka waxaan ku abuurnay privacy policy. aan u gudubno markaasi step-ka xiga. step-ka labaad ayaa ah inaan privacy policy ku soo darno website-keena. saan u soo darno kaliya wax yar hoos soo deg. kadibna marka waxaad ku dhufataa meeshaan ay ku qoran tahay copy this to clipboard. marka intaas sameyso, waxaad furtaa tab cusub, kadibna waxaad tagtaa website-kaada, gaar ahaan qaybta markaasi backend-ga. markii aad website-kaada tagtay qaybta backend-ga, waxaad ku dhufataa meesha ay ku qoran tahay pages. markaad pages ku dhufato, waxaad kasii doorataa meesha ay ku qoran tahay add new, oo waxaan u baahanahay markaasi inaan page cusub aan abuurno. kaliya halkaas ku dhufo. marka koowaad wuxuu kaa rabaa markaas inaad page-ka aad magac siiso. page-kaani magac ayaan siinaynaa, waxaan u bixinaynaa privacy policy.
kadibna waxaan ku dhufanaynaa meesha ka hooseysa calaamadan balaaska ayaan ku dhufanaynaa, kadibna meeshaan searching ayaan waxaan raadinaynaa ama aan ku qoraynaa html. So html kaliya waxaad ku dhuftaa midaan ay ku qoran tahay markaasi custom html ku dhufo, kadibna marka waxaan rabnaa inaan koodhkii aan soo koobiyeyna aan soo celino markaas. So saad u soo celiso kaliya waxaa dhahdaa markaas right click kadibna paste. So markii intaas aad sameysay kaliya waxaad ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay markaasi publish, kadibna publish siile. So marka hadda haddii aan fiirino privacy policy aan abuurno markaasi kaliya waxaad ku dhuftaa meeshaan ay ku qoran tahay preview, kadibna waxaad kasii doorataa preview in a new tab. haddaba sida aad meeshaan u jeedo tani waa privacy policy-gi markaasi aan abuurnay. So hal mar haddii aan markaasi qaybta hoose ee website-keena aan u daadegno, waxaad arkaysaa meeshaan contact us ay ku qoran tahay markaasi qofkii inay nagala soo xiriiri karaan dadka phone numberkii iyo markaasi emailkii markaasi aan u sheegnay. So haddaba sidaas ayaad privacy policy u abuuraysaa. So pagekan privacy policy aad abuurto waxaad dhigi kartaa markaasi qaybta footerka ee website-kaada ama meel walba ee markaasi aad rabto. So sidaas ayaa marka hadda loo abuuraa privacy policy page. So haddii markaas aad caawinaad ugu baahan tahay si guud website-kaadana waa nala soo xiriiri kartaa. waad na soo weydiin kartaa wixii su'aal adigoo nagala soo xiriiraya qaybta WhatsApp-keena markaas ama wixii su'aal qabtay comment-iga waa nagu reebi kartaa. So muuqaalka xiga iyo khayr badan.